السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو كانالك دختركاغا. maanta mowduuceenu waa difaaca jirka oo habka uu jirka iskaga difaaci karo walxaha dhibka gaadhsiin kara ha noqdaan kuwa ka yimaada dibada sida bakteeriyada iyo viruska ama kuwa ka dhashay jirka dhexdiisa sida kansarka. muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa cuntooyinka jirka ka difaaci kara cudurrada ay keenaan viruska iyo bakteeriyada sida cudurka coronavirus ama hergebka oo kale. waxaa jiro cuntooyin kor u qaado difaaca jirka si loola dagaalamo waxyaabaha jirka soo weeraray sida viruska iyo bakteeriyada. marka ay yimaadaan xanuunadan oo kale ay sababaan viruska sida hergebka, waxaa si dabiici ah ula dagaalamo difaaca jirka oo jirka ka saaro oo loo yaqaano immune system. haddaba waxaa jiro cuntooyin gaar ah oo u baahan yahay difaaca jirka si uu u noqdo mid xoogan. cuntooyinkaas waxaa ka mid ah cuntooyinka laga helo vitaminska sida vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D iyo macdanta loo yaqaano zinc oo muhiim u ah difaaca bini'aadamka si jirka looga saaro viruska soo weeraray ama soo galay jirka. haddaba su'aasha ayaa ah cuntooyinka vitaminska laga helo waa kuwee? cuntooyinka laga helo vitamins A waxaa ka mid ah karootada. karootada waxay ka mid tahay cuntooyinka sare u qaado difaaca jirka, gaar ahaan waxay firfircooni ku abuurtaa unugyada cadcad oo loo yaqaano white blood cells ee jirka ka difaaco caabuqyo badan. sidoo kale vitamin A waxaa laga helaa khudaarta cagaaran sida koostada iyo bocorka oo loo yaqaano pumpkin. vitamin C waxaa laga helaa zeytuunka, qaybaha liinta sida liin babeelmada, liin dhanaanta iyo liinta loo yaqaano oranjaha. sidoo kale babaayga, toonta iyo strawberryga dhammaantood waxaa laga helaa vitamin C, waxayna ka qayb qaataan in difaaca jirkaaga uu noqdo mid xoogan. aanu nimaano cuntooyinka laga helo vitamin E. vitamin E waxaa laga helaa saliidda dhirta sida saliid zeytuunka, miraha qubka leh sida looska, aamdhada ama wax loo yaqaano almond. aanu nimaano cuntooyinka laga helo vitamin D. vitamin D waxaa laga helaa caanaha la adkeeyey sida caanaha badanaa isticmaalno oo ah caano booraha iyo saliidda kalluunka. sidoo kale waxaa laga helaa ukunta. halkaas waxaan kaga soo dhamaanay cuntooyinka laga helo vitaminska. aanu nimaano macdanta zinc. macdanta zinc aad ayuu muhiim ugu tahay inay koriso ama kor ay u qaado difaaca jirka, waxaana badanaa laga helaa cuntooyinka badda sida kalluunka iyo khudaarta cagaaran. sanjabiilka ayaa ka mid ah cuntooyinka kor u qaado difaaca jirka isagoo firfircooni geliya unugyada difaaca jirka, gaar ahaan unugyada loo yaqaano lymphocytes oo hooshoodu ah inay burburiyaan unugyada dhibka ku haya jirka iyo la dagaalanka fayrasyada sida hergebka. sanjabiilka aad ayuu muhiim ugu yahay. cuntooyinka kor u qaado difaaca jirka waxaa ka mid ah xamarta ama wax loo yaqaano raqiga. khuburo caafimaad ama cilmi baarisyo badan oo laga sameeyey ayaa laisku raacay in xamarta ama raqiga ay ka hortagto cudurka loo yaqaano kansarka, isla markaana kordhiso tayada difaaca jirka. sidoo kale cabidda biyaha badan waxay qayb weyn ka qaadataa koritaanka difaaca jirka. biyuhu muhiim ayay u yihiin nolosha, waxayna qayb weyn ka qaataan caafimaadka jirka iyo qashin saarka sunta. jirka bini'aadamka qiyaas ahaan wuxuu ka kooban yahay 50% ilaa 70% oo biyo ah. ku dadaal cuntooyinkaas iyo khudaartaas si uu difaaca jirkaada u noqdo mid xoogan. ku soo biir channelka oo subscribe saar si aad ula socotid talooyin caafimaad oo muhiim ah. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.